waxaan weydiin lahaa taleefanka ayaan iska meersanay waxa uuna ii sheegay inay xilligaasi la joogeen marqaatiyaal iyo sidoo kale sheeqi meerinayay marka meerkaasi sheeqo ma ansaxaya alxamdulillah طيب تلفون iska meersadaan waxa uu sheegay isaga iyada warigeedii aw masalada hadday ka muuqato ay masaladu tahay qudba sira tahay ama telefoon ha noqdo ama toos ha noqdo nikaaxaas ma jiro laa nikaaxa ilaa biwaliyin nikaaxan wali lahayn ma jiro أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل صدح شر نبي أن كعل علي عليه الصلاة والسلام marka waxba yaan been lagu sheegin oo lagu lugoynin guur nabi maxamed ku celceliyo waxba kama jiro waxba wadaad kuma luuqluuqi kara waxba ka jiri iyo walaan jirin yaan waxba loo sheegin dadka nabi maxamed baa sallallahu alayhi wasallam فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل dusan ambaasha in la hubsiyo xaqiijiyo aan loo jeedin oo lagu celceliyeen waa la adkeynaya waa lagu ku celiyo nabiga sallallahu alayhi wasallam sadarteed gabadhan hadduu nikaaxan qudba sira aha waligiina aan la ogeysiinin dee طبعا markhaati iyo wadaad baa ila joogay ma ahayn inay martay haddii weliga laga xaal waayay inay qaadi martay ahayd qaadigu ka xaqiijiyey weligu xaq ma u leeyahay diidada wax sharcan looga garaabi kara sababtii ku diiday ma tahay mise maaha haddaynan ahaynna qaadiguba meheriyo wax loo dhunto meherka loo dhunto ma jiraan sharciguna ma ogola hadduu meherxada haddee toos iyo telefoon midna waxba kama jiraan haddaanu ahaynoo weligeedii iyo gabadhu ay joogeen waxay u baahan tahay dee ninkiina la garanayo iyagii isaga iyo markhaatiyadii garanayaan nikaaxu wuu asaxayaa in codkii iyo dadkii la garanaya haddana telefoonku waktigeenan cod waaba la dhaafo oo maqal iyo muuqaal baa la ysarkaa وبالله توفيق جزاك الله خير